odayaasheena iyo cidda imika wax doorata iyo nabaddoonnada iyo isimada waxaan u dardaarmayaa dembiga waxbaa ku leedihiin madaxda waxa qaribta haddaydan madax fiican inoo soo saarin haddaydan baarlamaan wanaagsan inoo soo saarin oo dooran dadka keliya diinta iyo dadka qura ilaalinaya haddaydan dooran dembiga waxbaad ku leedihiin aakhiro kamana dabaalan kartaan hadda Puntland waxa ka jira tartan doorasho tartanka doorashada ayaa caawa hadaf keentay in bulshada halka joogta fikirska wax iska weydiiso hoggaanka loo baahan yahay in laga tashado maamulka wada jir wax miiska ayaa loo yahay ee aan dictatoriyad iyo jujuub iyo isnac iyo xisbiyeyso iyo kana xiga aad ka samaysan iyo najacay bulshadu ma hagaagsanay maxaa hagaaji ka qaaday waa tusaale fudud aan soo qaadan karo maxaa hagaaji ka qaaday madax xumaatay ma inaga wax dooranayna mise lacag mooda wax dooranaysa odayaasha soo xulaaya dambiga waxbay ku leeyihiin horta qofku in loo darto ku wanaagsan laano nabi maxamed cali sallam waxyaalo ka yar waxa kamid ah anagu madax kama dhigno mana dirsanno cid doonata oo inagu meel kale wax ku yiri waa amaano aakhirna wala iska xisaabtamayo nidaam ay noqonaysa muhiimaddu waxa weeyaan inaynu shucuurteena muujino tala bixin dhiibno odayaasheenii waxgaradkeennii nabadoonnadu waa nabadoonnadeennii xildhibaanada soo bixi doona waa xildhibaanadeennii sida ay inoogu shaqayn lahaayeen madaxweynaha soo baxaya waa kii la rabay inuu bulshada u adeego bal sidii aynu rabnay inay inoogu shaqeeyaan inaynu wax iska weydiino waxa la maamulaya waa dad waa hantidood waa in dadka iyo hantidoodaba loo turaa laakiin aan laga danaysan wax kale oo la rabaa in uu leeyahay qofka hoggaan ummad noqon karaa inuu garasho fiican leeyahay iyo aragti dheer oo aanay aragtidiisu soo gaabnayn waayo maadaama ummad madax u noqonayo waxay u baahan tahay go'aan qaadasho go'aanada qaybtoodna waxay u baahan yihiin adkaysi iyo ku dhiirasho qofka hogaamiyahaahi waa inuu yahay qof dadka ku hagaya dariiq ku dayasho mudan waxay kaloo yiraahdeen waa inuu yahay qof aragti dadka ku dhiirigelinaya ay gaaraan qof run sheegi kara qof la aamini karo qof kalsooni isku qaba qof islaamka bulshada uu matalayo kalsooni ka qaba dalka waxa loo kala kacay qabyaalad waxa maanta waxa lagu doortaana waa qabyaalad ma eegayaan maxaa aakhira ka dambeeya ma eegayaan arrintani culayska ay leedahay iyo dhibaatada ay leedahay adduun iyo aakhiro midna ma eegayaan xaqa iyo baadilku iskuma jiraan wax walba ilaahay baa cadeeyay laakiin waxa isweydiin leh bulshada hadda joogta wax walba leh culimadii leh waxgaradkii leh aqoon-yahankii leh isimadii leh oo cid walba leh oo inta aan sheegay aan leenahay yaa xaq iyo baadilkii isqabsaday waxaan rabaa Sheekh Abdulqaadir inaan weydiiyo qofka hogaamin u bixinaya lacagta uu bixinaya iyo qofka lacagta qaadanaya maxay lacagtaas noqonaysaa wixii in la bixiyaa ay xaraam tahay in la qaataana waa xaraam hogaamiyahana waxyaalaha ugu muhiimsan waxa kamid ah waxa uu sheegayana inuu qabto wix dadkuna waxa loo dhiibay inuu aamin yahay dadkii ma moodidba in maxay taan ee dhulka yimaadeen inay deegaanka ka soo jeedeen dadka muwaadinimadii waa ku yar ma bulsho wanaagsan ba hogaamiye wanaagsan soo saarta mise hogaamiyaha wanaagsan ba bulsho wanaagsan soo saara waxaan mar labaad anigoo afka dhalinyarada ku hadlaya aan aad uga xunahay hadii aan nahay dhalinyarada in runtii laga weeciyay dawladnimadu sida ay ku socotay oo xaaladdu hadeer waxa laga dareemayaa ay tahay xaalad khatar ah oo aan runtii dadka badankiisa farxad gelinayn markasta oo xoog wax lagu doono clash iyo isku dhac inuu yimaado way fududahay markii dadkii madaxda ahaa ay u yeedheen wajiyo xun iyo kuwa u heesa oo la heesay oo isimadii iyo cuqaashii iyo culimadii iyo waxjaradkii oo fadhiya inta laga yaabo lagu yiraahdo aayad quraanka inoogu furfur oo aayadkii wacdiga aad aqridid markaad dhamaysid la yiraahdo sheekhu waa mahadsan yahay oo la daaro qoladii lagu soo dhaweeyo ama quraanka lagu xijiyo ama quraanka lagu xijiyo dee waxa la dhiiri geliyay waa markay waa arkaysa
culimadu waxay kaga jirta xataa haweenka ka horeeya in la tashado xataa haweenka ka horeeya war ma baatay waade laakiin inaga hadda waxa inu rogay qof aan wadankiiba war u hayn bulshadii war u hayn inta in leego xog ahayn inuu ka isu soo sharaxo wuxuu yiri waxaan qancay wiir ayga wareerta aniga markii meeshan dabeero la soo fariisiyay wata siifiye shabeel marka meeshiiba waxay noqotay waxa moodaa waaqaca inta badan hogaanka waxa xoojiya waa elite-ka waxa fashiliyana waa elite-ka hogaanka laftiisu ma fiicna inaan ka soo qaadno inuu yahay hal qof marka hogaan leenahay inta badan majmuuca yani waa koox inagu markaynu mid dadban u noqonay maxaynu sugaynaa miyaynu ka hadli karnaa inaynu nahdo tii dadbanayd haynoo dhasho wax xalaala ma dhalayso waa ku qadhaadhaanaysaa innaga qallooca ku kalsoonayn waynu u dirnay qalloocaasa lagu kala adkaan in nabadoonnadii la soo fariisiyo in hogaamiyaha bulshadu ay rabto maxay tahay miiska loo saaro oo la dhaho war ummadan masiirkeediba gacanta ku haysan ilaahay uga cabsada oo qofkana ku xiga iyo qofkana bari ka maalin maxay tahay aan saameyn ku yeelanaysa go'aanadiisa dulmiga ilaahay weynaa oo aan cidina qabsanayn baa diiday xiri inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altu bainakum muharrama baladan hadaf oo hadiya jeer keenta caawa arrintan ay meesha ku hayso doodahan oo kalena si gaar ah ugu hambalyeynaya runta cilmi baaris iyo horumarinta hadaf